xilligan ay colaaduhu ka sii darayaan gobolka Bariga Dhexe, dalal dhowr ah ayaa qaaday tallaabooyin adag oo si toos ah u xadidaya xorriyadda hadalka iyo baahinta macluumaadka. Israa'iil, Kuwait, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa midba si gaar ah u muujiyay awoodda ay dowladdu u leeyihiin inay ku meel mariyaan xeerarka degdegga ah oo xadidaya xaqiiqo sheegidda, iyagoo ay ku sababeeyeen ilaalinta amniga qaranka iyo xasilloonida. Israa'iil ayaa amar ku bixisay in aan la duubi karin ama aan la baahin karin waxyeellada ka dhalata weerarada, sida khasaaraha nafeed, burburka dhismayaasha iyo gantaalaha soo dhaca. Go'aanka ayaa si cad u cuuriyaaminaya warbaahinta madaxa bannaan, waxaana ujeedadu tahay in maamulku uu si buuxda u xakameeyo macluumaadka la faafiyo, iyadoo bulshada ay ku khasban tahay inay ku tiirsanaato oo keliya wararka ay dowladdu soo saarto. Kuwait ayaa qaaday tallaabo ka sii adag, iyadoo xabsiga u taxaabtay 13 qof oo duubay muuqaalada gantaaladii ay Iiraan ku beegsatay saldhiggii Maraykanka. Waxaa lagu eedeeyey inay faafiyeen macluumaad khatar ku ah amniga qaranka. Sidoo kalena, Bahrain ayaa xirtay 4 qof oo duubay muuqaalada gantaalada, iyagoo sawirradooda si rasmi ah u baahisay si ay digniin ugu noqoto dadka kale. Tallaabooyinkan ayaa si toos ah u laalaya xorriyadda hadalka, iyagoo xoogga la saarayo cabsigelinta bulshada. Dhinaca kale, maamulka Dubai ayaa ku dhawaaqay in qofkii duuba ama faafiya muuqaalada qaraxa iyo gantaalada laga masaafurin doono dalka, isla markaana dacwad sharci ah lagu soo oogi doono. Tallaabadan ayaa muujinaysa in dowladdu ay beegsanayso baraha bulshada oo noqday goobta ugu weyn ee xogta lagu baahiyo. Inkastoo ay dowladdu ku dooday in xayiraadahan ay muhiim u yihiin ka hortagga argagaxa iyo sugidda amniga, haddana waxaa cad in xilliyada colaaduhu ay dowladuhu awood u helaan inay si fudud u ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah. Saamaynta tallaabooyinkan ayaa ah mid ballaaran, waxa ayna u adkaysanaysaa warbaahinta caalamka inay xoogagaal u noqoto xaaladda dhabta ah ee dhulka, halka ay muwaadiniintu dareemayaan in si sharci ah loogu xadgudbay xorriyaddoodii hadalka.